u dhaxeeya labada meeloodna danahoodun bay ku gaadhaan maslaxada ay u hayaan oo muuqataa ma jirto danaha siyaasiga unbaa lagu gaadhaa waayo hadday u hayaan way ka muuqan lahayd waxaa la yidhi deeray xeradegdega ka warrana waxay tiri shafkaygaa laga waraystaa hadday waxu hayaan way ka muuqan lahayd gobollada horumar baa ka muuqan lahaa ay keeneen waxay u qabteen baa ka muuqan lahaa soomaad garanin dadku marka iyagoo taa qaba ayaa sharciyaddii iyo wada lahaanshihii awalba beenta laga sheegayeen oo dadka lagu maaweeliyana meesha ka baxeen taasaa marka waxay keentay in ay dadku kacaan shucuurkooduna kaco waxaa soo haray siyaasiyiinta baaqiga ku ah waa maslaxad siyaasadeed taas dhaqankii qaarkood dhaqan anu moogi anu dhaqan moogi dhaqan beeshaada ka soo jeeday Puntland wax ku darsatay baaqi ku ah ma jiraan baaqi hadda cid ku ah oo dhaqan aanu garan maayo ma garanayo adaa hadda ii sheegi karo oran kara hebel baa ama garow jooga ama hebel baa halkar jooga waa oran kartaa moogi kaadi moogi laakiin siyaasiyiinta maslaxadaha harihi dee way joogayaan iyagu because maslaxadahoodii iyo danahoodii baa ku xidhan laakiin waxay iyadana maslaxadoodu dhimanaysaa marka shacabweynuhu intuu tashado Puntland sixideedana la waayo iyaguna tashadaan oo go'aan gaadhaan kuwaasna maslaxadoodu marka halkaas ka afshamaysa dabcan Puntland beela isku tagay dad wax wada qaybsada waay waxaad ogtahay markii adigu xilkii laga qaaday kadib gudoomiye ayaa la doortay oo waliba beeshaada iyo deegaanka ka soo jeeda soo ma dhihi karno kaliya Cabdixakiin baa meeshii ka baxay wali beeshii iyo hanaankii wax wada qaybsiga ee Puntland ku dhisneed waa sidiis horta ag waxay ku dhisan yihiin sidooda waa mandate-kuna wuxuu salka ku hayaa sharciyad wuxuu inaadeer way sharaf iyo qiimo beri hadda sharciyadda dhaafaan ka nasiib ka nasaartuna wax dhib badan markaa maaha laakiin waxa macnaha loo u baahan inaad fiirisaa waa sharciyadda mandate-ku salka ku hayo taasi hadday meesha ka baxdo qof meel joogaa wax laa qiimata laha qof meel joogaa ama qof wax sheeganaya laa qiimata laha wey waxa qofku wax ku yahay ama stateku wax ku yahay ama wax lagu sheegan karaa waa mandate-ka leysasiyey oo salka sharciyadda ku haya hadday labadaasi meesha ka baxaan qof wax sheeganay anaa hadda waxaan rabo sheegan kara wax laa qiimata laha gudoomiyaha hadda xilka haya miyaanu matalaadda awood qaybsiga ee beelaha ku dhisan uusan ku fadhin kursiga deegaanka aad ka soo jeeday ee beesha aniga mis inuusan matalin aad aaminsan tahay beesha anigu ma aaminsan matalo ma matalo beesha saanu matalin baan aaminsanahay wuxuu matalayaa markuu sharciyad ku yimaado sifa sharciya markuu ku yimaado magaciida waa sitaa waa matali karaa laakiin sifa sharciya haddaanu ku imanin ma matali karo waxaase caddayn doonto salo noqon doonto ummadda la leeyahay wuu matalayaa hadday dee Puntland iyadu ay ogolaato oo dee sidaa ay maaragtay dee ku ogashahayna way muuqanaysaa oo markaa dee wuu matalaya hadday tashato na waxa weeye waa dee waalitaan ka hadlayo waa laa qiimata laha waa nin meeshiisaa iska joogo oo oday shaqo tegey buu noqonayaa waxaadna daliilkuuga ah dal iyo dibad shucuurka dadka waad arkaysa iyo shacabka samaad garanin taasaaba kugu filan adiga hadda waxaad su-aaliga weydiin kartid maa shucuurka dadka wataad arkaysay gudaha hadday joogaan iyo dibadda had joogaan waxay ugu soo simeen annaga Puntland haddii sharciyaddii la lumiyey oo guddoomiye sharciga ahaa oo joogay sharci darro meesha kaga baxay daadmiinis waxay la tahay Puntland annaga xaggayga in la waayey waad arkaysa sharciyadda dibaddu markay hadlayeen way duuban yihiin Cabdixakiin beeshu Macabdi iyo Cali ayuu kala dooranaysaa labada ninba adiga iyo guddoomiyaha kalaba beesha ayaad ka soo jeedaan Macabdi Cali ayuu kala jecel yihiin aad leedahay anigu hadda su-aashaas aad weydiinaysa taa ma fahmin markaad leedahay beeshu ma ku midaysna ma waxaad ula jeedaa anigu miyaan eri beeshu anay raacsantahay isaga ma aqoonsan waraysigu iyo kaa xumaana su-aashaa ka jawaab waa inuu yahay waraysiga iyo su-aashaadu macnaha wax dadka wax u faa'iideynaya gudoomiye waxaad halkaaga u dhigtay beeshu meel kastay joogto waxaad tiri waad aragtay shucuurkee muujisa ma waxaad leedahay beeshu aniga iyo xilka qaadisteedii ayay ku saf noqotay gudoomiyaha iyo talada hadda hayaa ma raacsan adigaan su-aal ku weydiinaya تيدا كجواب وكذا شو أبي أسأل ما كنت ليه وجواب تيدي كجواب شعور كذا قدتك كذا موقني قبل هذا محو هذا اليدبت هذا شو معي هاي أنا هذا كويديش معي هاي هذا دوا شواب تيدي قدومي شعور مذيسن وأنا وأن أجهي إن ضد كاسو إنتي مالي سوي مالنا أيه ودن أي موقف كاجا كموجين ماهين مركا laga tago dad gooni ah marka mooxaad qabtaa adigu inay beesha adiga kugu daba faylan tahay ee aanay taageersanayn raacsanayn gudoomiyaha hadda jooga dadku sidiisaba doonis buu ku hadlaa waxa fiican dadku doonis buu ku hadlaa
anigu ma hadlin haddaan hadlayna anigu cid qof gaara lama hadlin laakiin waxaan ka hadlayay wixii dhacay iyo sharci darrada waay beeshu iyadaa hadashay baan ku yidhi Waay. hadday dibad joogtana iyadaa hadashay waay hadday guda joogtana iyadaa hadashay waay waa ma maasantay fahamtay iyadaa marka ka qaadan kartaa waxay qabto waay Ah, waay ah. maamul ka madax badnaan puntland iyo somalilan miyaad qorshaynaysaan inaad dhistaan oo adiguna aad rabtaa inaad u noqoto hogaamiye anigu hogaamiyenimo dooni maayo waxaan kuri balan eegaygu horena aan u sheegay wuxuu ahaa sixitaanka puntland la wada leeyahay haddii la waayo waa la kala tashanaya somaad garanin waay hadday puntland taa u soo hoga weydo waa la kala tashanayaa haddaan sheegaynaa dadku awalba dad isu yimoo gobol la'abay ahayn waa isku darsaday waay somaad garanin intii tale kale heli kartaaba aha way tashanaysaa wax reebanna ma aha inay wax samaysato waay hoggaan baad ka noqonaysaa iyadoo wax kale Waa Anigu mahadsanta. ummad badan baa dhulka joogto waay anugu hogaannimana hadda aan moogtahay meel igu xidhanna ma jirto laakiin Waay. dadkaasaan ka mid ahay waay Ah. maamulka uu hogaamiyey madaxweyne deni dadka qaar waxay ku eedeeyaan in ay ku gadaaman yihiin koox la yidhaahdo aaranjan oo taladii marooqsatay dad badan sida ay qabaan ma qabtaa fikirkaas adigu ha fasiraad naga sii kooxdaasi waa koox gruub ah waana kooxda hadda puntland ka noqotay kooxda qowlaysatada ah ee ficiladan dadku ay shacabku dhibsanayaan oo dhan samaynaya soomaad garanin waxay kooxdaasi waa kooxdu ka hadlayey madaxweynihii hore cabdilla maxamed cali gaas waay oo buugga ka qoray waay waa fayrus puntland muddo ku jiray haddeerna weli ku jira somaad garanin isuna arka weliba hadda in iyagu tan ay dhisteen puntland baa dhisatay laakiin iyagaa waxay soo arkaan inay dhisteen waxaa marka iyaga fakarkoodii taageeroo u hiiliyey madaxweynihii dadku doortay baa wuxuu aaminay in iyagu dhisteen waay laakiin aan shacabka puntland dhisan taasaa marka miisaankii wuxuun u iishay xaggooda because madaxweynihii baa aaminay madaxweynaha shacabkaa dhistay Waay. baarlamaankaana soo doorto shacabka matelayay shaqada iyagaa u dhiibay waay soomaad garan anuu dadkii dee waxaan ahaa taageersanaa waay soomaad garan laakiin isagii baa wuxuu aaminay fikirkii ahaa inay nimankaasi dhiseen iyagaa qabay moogtahay fikirkii way ku qanciyeen oo wuu qaatay taasaa marka waxay keentay in miisaanku xaggoodii u iisho talada puntlandna iyagu hadda ay xagga dambe u fadhiyaan oo marba dhinacay doonaan u rogayaan Waay. ama ay rumuudba ku hagayaan kan tv dhaladoo kale ay ku hagayaan marka waa koox jirta waana fayrus dhibaatada puntland ka jirtaana wayaga haddaan reer puntland xal loo helin maxaa ka mid a dhibaatooyinka shaqo haddaan kooxdaa xal loo helinna puntland waddadii burburka bay cagta saartay kamana soo noqon doonto hadday burbur tahay waana sii burburaysaa adigu ma ka mid ahayd xildhibaanadii codka siiyey madaxweynaha talada hadda ay anugu haa dadkii dhisay baan ka mid ahaa codkaaga ka guddoomiye ahaan isagaa tiis dadkii dhisay baan ahaan waay kooxda aad sheegtay maxay tahay dhibaatooyinka ay ku hayaan puntland waxaa ka mid noo sheegi kartaa hal iyo labo waxay ku hayaan waa kooxda hor taagan in qarannimo soomaaliyeed la helo waay waa kooxda hor taagan in ummadda talada ay wax ku yeelato waa kooxda hor taagan in instituushannadu si madax bannaan u kala shaqeeyaan waay waa kooxda wax walba ku dhisaysa maslaxadahooda gaarkaa iyo danahooda gaarkaa waay waa maasanta shahaad muqdisho u joogtaa maxay tahay muqdisho waa caasimaddii dalka waana fadhigii dowladda soomaaliyeed anuna nin soomaaliya baana soomaad garanin joogisteedu markaa macnayaal badan bay samaynaysaa howlahan sixitaankaa waan ka wadaa wada tashiyada dadka gobolladaa degan oo halka joogana waan ka wadaa soomaad garanin waana dowladdii fadhigeedii oo dee anuu nin soomaaliya baanahay soomaad garanin howlahaasaan marka u joogaa oo ah tashiyada dadka gobolladaas ka soo jeeda iyo tashiyada dadka reer puntland ee ka soo jeeda puntlandba labadaba waanu joogaa waay waxaa nagu maqaalaha in lagu wado safiirka soomaaliya ee eritrea arrintaa ma jirtaa maya anuu safiir mana codsan dowladdana ma weydiisan laymana wado soomaad garanin mana doonaya kuma qanacsani waxaan ku qanacsanahay shaqo kalena haddeeraan kuu sheegaya qaban maayaanu shaqadaan qabanayaa waa sixitaanka puntland haddii la waayana waa la kala tashanayaa oo tashiga iyo hawsha aan wadaan wadaya laba shaqo taa keliyaan hadda qabanaya waay waa shaqada keliyaan hadda u soo jeedo qarin maayo dadka waan u sheegaya cid walba maqlaysa waxaan u sheegayaa
anigu hadda xil ma rabo dowladdana uma soo raadsan shaqada aan wadayaa waa puntland la wada leeyahay in la helo wixii dhacana dib loo soxo haddii la waayo waxa aan wadayaa waxay tahay oo laygu ogyahay in la kala tashado cid walba oo tale kale heli kartaana ay tashato ee aan cidina isu khasbanayn sixitaankaas maxaa diidaya in inta deegaankii aad ku laabato puntlandtii caasimaddii tagto halka aad ka soo bilowdo waaba ka bilaabay sixitaanka baan hadda halkan safar baan ku imid waxaan ka waday gudaha waana laabanaysaa waana laabanaya waay hadduu alleed waay waxaad og tahay hannaan dimuqraadiyadaha inay aaddo ayay rabtaa puntland welina lama hirgelin taasi oo shacabku awood uma laha ilaa hadda inay iyagu doortaan cidda hogaaminaysa maxay tahay caqabadda hortaagan puntland inay gaarto doorasho dadku ay go'aamiyaan caqabadda hortaagani puntland waxa weeye waa wax iska muuqda waa caqabadda sababtay in koox yare hadba iyadu aysay rabto wax u dhigto maamulkana gacanta ku hayso kaas ayaan marna ogolaanayn in puntland dimuqraadiyad gaadho ma maamul kastoo soo maraad ula jeedaa kooxa qabsato koox baa haysatay maamul kastoo kan keliya maaha koox baa haysatay kooxdaasun baana daba fadhiday somaadka qolada waliba aaran iyagu labayba kii labaad bay hadda marayaan iyagu waay tii cabdiweli mayaga haystaa maya tii farwad ula jeeda tii farwad haysta waay tanna iyagaa haysta marka waxyaabahaasi ma dhacayaan haddii dadku rabitaankoodu meesha iyo doonistoodu timaado in kooxi meel daba fadhiisato ma dhacayso dalku axsaab buu yeelanayaa waa la sifinayaa waa la ismucaaradayaa maxay ahaydeen khaladka dowladdu gashaa la sheegayaa somaad garanin hebel baa nacay iga bedela meesha waa ka baxaysaa hebel baan doonayno fikray ka soo horjeeda way ka baxaysaa dimuqraadiyad furan bay noqonaysaa horena uma dhicin haddeerta la sheegayo leeyahay waa la daha furaynaa inay daha furmayso ma ogeli waxaad ogtahay puntland waxaa ka jira saddex xadhigisudhiib wax la yahdaa ka jira xadhigisudhiibkaas saddex ma dhaafo qolo saddexda qolo waa saddexda xisbi ay u arkaan inuu xaq yahay saddexdaa xisbiun baa puntland ka jira marka xisbi puntland magac le la yidhaahdo xisbi hebel ma ogine maxaad ula xisbi hebel ma jiro maxaad ula jeedaa laakiin waxaan ku yidhi saddex xadhigisudhiib baa jira saddex xarig saddexdaa xadhiguun ma noo fasiri kartaa saddexdaa xadhig ayuunbaa ku miilaysta madaxnimada puntland dad badan aan fahmaynin iinkaade cid walbaa fahmaysaa cid hore u soo qabat cid kaloo qabatayba ma jirto ma qabaa'ilkaad ula jeedaa waa qabaa'il waay soomaad garanin cid kale oo qabatay oo madax ka noqotayna puntland ma jirto waana waxyaabaha keenaya ummaddu hadda inay puntland ka qanacdo soomaad garanin dimuqraadiyad puntland halkaasii hore uga joogtay waxaa soo hadhay tan hadda laleeyahay waa la daafuray anigu aad baan ula yaabana waxaan aad ula yaabana oo wax laga xishoodaa oo damiirka iyo caqliga saliimka ay diido inaan maantana wax ku hadlo ama maanta intaan wax sameeyo berri wax kale ku hadlo anigu cabdixakiin madaxweyne deni waxaad ogta wuxuu weeraray baarlamaankii xabad wuxuu ku bixiyey lacagtii ummadda sharci darro inuu ku rido guddoomiyihii baarlamaanka hantida ummaddeedii inuu isticmaalo wuxuu ka xishoon waayey inuu maxay ahaydeenay wasifo sharciya maro oo xabadna iska daayo dhaanuushna iska daayo waa madaxweyne waxyaaba badan buu adeegsan karaa wuxuu ka xishoon waayey inuu ummadda ama adduunka ha noqoto international community-ga ama ummadda kale ha noqotee indhahooda ka duwo waxa uu samaynayay oo farxumaa wuxuu sameeyey inuu ciddii hadasho oo tirahdo waxaana khaldan yidhahdo ha la xidho waxaad ogtahay hadda dad inay u xidhxidhan yihiin 20 cisho in gaadha bari inay ugu xidhan yihiin odayaashii ugu waaweynaa ee dadka hormuudkiisa ee dhaqanka ahaa ninkan noocaa u dhaqmaya waxaad kaloo og tahay inuu har su'aal oo xildhibaan xaquloo kii soo doortay weydiiyey uu ku sigtay inuu dildillaaco qarxaba cadhadu cadhooday oo xataa baarlamaankii ka cararo oo inta ka boodo cidaan waa fasixin ninkii noocaa ahaa oo waxaa samaynayay inuu maanta yidhahdo dimuqraadiyad baan daah furaya ilaah baan ku dhaartay waa wax laga xishoodaa waa wax qof ibnu aadani oo dhegihiisa iyo afkiisu ismaqlaya wuxuu ka xishooda baa aniga yarata waayo sidee dimuqraadiyad ogolanaya su-aal baaba dhibtay ilaa dimuqraadiyadda lagu sheegaya waa axzaab afkaarta in lagu kala duwanaado dadku inay doodaan in lays eedeeyo in lays ifiyo in maxay ahaydina dowladdu wax khalado la sheego in lays dabagalo waa sidaas dimuqraadiyaddu ninka marka su-aal xamili kari waaye ama da shacabkiisii dhegaysan kari waaye waxay ka cabanayeen oo qancin kari waaye oo ila xidha kii hadlaba dimuqraadiyadda oo maanta leeyahay waan daah furay oo sheeganaya ma gaarsiin karaad qabta adugu waxa weeye waa waxaan waxba ka jirin waxaan oran lahaa niyow xishood afkaagii dhagaha baas maqleen maalinkuu baa ka soo degayey haddeera waxaa la soo gelayaa marona aad ula yaaba miidiyaha
boose maalintu ka soo degayey oo cabdiweli uu joogo waliba madaxweyne ka furfuran oo waxa weeye ummaddu dee xor u tahay fakarkeedii iyo waxay aqoto uu joogo ayuu wuxuu lahaa hebel iyo hebel baa la xidhay dadku way hadli karaan waa wuxuu ku hadlaya isagu maantana wax kaloo leeyihi marka waxa fiican qofka ibni aadankaa siyaasiga ahay inuu niyahu qowlkiisa iyo ficilkiisa iswaafajiyo wixii shalay iyo wixii maantana isku daya calaqal inuu isu dhoweeyo marka waxaan leeyahay wax suurtagelayana maaha nin dimuqraadiyad ka bixi karana maaha nin awooddeeda iyo kabasitigeeradana maaha waa nin dictatornimo u abuuran oo u samaysan marka been buu dadka u sheegaya aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa cabdixakiim maxamed axmed dhoobadaareed gudoomiyihii baarlamaanka ee puntland oo waraysi gaar ah siinaya tv universal gudoomiye aad baad u mahadsantay adaa mudan insha allah